الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسنا قيارتها ودينا قداونايساي هالكني وسومالي وين تي في أو تضبطكي ومرأة كداوتان مقالة يتبوري نواحي كذا أدينكو إنا قداوان كرا أبنا كنال إنت كلي عالم كوحي تتوسا إنا قداوان كرا برتين إنترنت كا عوان كياقو أو يهي www.somaliweyn.com قيارتا يرجعلنا هاي برنامج شدا أيدين هاي نعاوة وحا ugu horeyn doona sida caadada marka ugu horeyso waxaan idin soo deynaa aayadaha quraanka kariimka aayadaha quraanka kariimka kadib waxa aad daawan doontaan barnaamij diini ah marka hore ku soo dhawaada aayadaha quraanka kariimka oo markasta aan ku daafurno barnaamijkeena bismillahir rahmanir rahim والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. الله نوع أنفع آياتها القرآن الكريم هذا نوح بصور دوات أظن وحوي إله رالي وكانوا قد يكون ما ترنسا وحوي هذا حديث كسبحانه تصنيا نعمة يا خيرات يا عافمات يا حولها أنا هيسنو وامتحان وياه وأنا فيرنيا وحلقة ما بيت قراوضة أو مسكينة كتار إن الله كوسوس الله أو مقرن قربيه حرام عجسي هذا ما قالته إنه مقرن إسكيه هاي من ما ترى ما يقصين ماي يعني أنت أسدراد يد حوله يو عافمات كيو لما أنتوا ذكاء قران أي صورة كلا حكذا ويد عذارنا تاريخنا واحد يقانويا مركب بشر والسكون امتحانه وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون بإلهي قال بقار كي نكلا واسكون كي امتحاننا نك عافمات قبه نك عذر قبه كنت امتحانيه كان حولها له كان فقير كان امتحانيه كان حوق له كان حوق يبقى امتحانيه كعقل بدنه كان عقل يبقى امتحانيه بنادم واسكون امتحانيه إنه مارتي ظروفه اسفيريه إلى ود كسوليه سبحانه وتعالى حقوق قيبيه إنه مارتي الاسفيريه وقف بدن كيس دوليه marka xadiisku waxa inoo muuqanaya sida quraanku uu leeyahay wa qaliilun min ibadiy ash-shakur dadka shukriya oo nicmada marka la siiyo ku shukriya dadkan ku shukriya inaysan maartay isu dhigmino waxa way tirada hadda waa arkaysa waa thuluth waxa way thuluth baa shukriya saddex hal baa shukriyay ma garanaysa oo ma fiican noqday labana beertay galeen basharka badankiisu waa saas oo kale marka loo nicminayo inta faraha badani nicmada ma garabto kama shukriso wa qaliilun min ibadiy ash-shakur sida ilaahay quraanku leeyahay subhanahu wa ta'ala
marka hadalkaygii 10kii way iga dhamaadeen nidaan malaynaya waxaan leeyahay khayraadka iyo isxaanka iyo dadka loo sameeyaa iyo cadaaladu shay wanaagsan weeyaan aan weligeed mid ku dadaalno culimadanada iyo dadka alu khayrka ahi ummadda Soomaalidu qadiyada la yiraahdo samafalka iyo wanaag sameyntu waa reer ku xidida dheer weeyaan oo haba fara badan loo isticmaali jiray dadkii guuleystana waxa weeyaan waan garanayaa tiro fara badan culimada qaarkood waxaan garanayaa xoolahooda arday markuu yimaado xoolahooda siiya oo ku jira meel bay ku jiri jireen ninka markuu yimaado meel fog Soomaaliya darafteeda kale meesha kale ka imaan jireen Sheekh Abdulrahman Umar Sheekh baan garanaysaa sheekh la oran jiray oo asoo cilmiga baraya haddana waxa weeyaan in kastoo u yimaado oo Soomaaliya wuxuu sameey jiray cid buu ku jiray jiritaanka waxa la yiraahdaa qofka in reerkii meel biilkiisa loo saaro asagoo kitaabka u akhriso jilid baa la yiraahdaa meesha ku jiray yahay sidoo kale culimo fara badan saas sameey jireen marka waa shay taariikhda Soomaalida ku xeel dheer culimada ayaga wax bixin jiray xoolaha bixin jiray oo garanaysa xirta soo dhaweyn jiray cilmi iyo wax isugu dari jireen marka qadiyada wax bixitaankuna wax wanaagsan ummadaha soo jiita weeyaan way jiraan dhinac kale oo maartay dadka ka qaraabta oo xoogay maartay siyaalo kale wax u sameeya laakiin waxay ahaayeen oo dad maartay aan gaarsiin mustawihii loogu talagalay hada jeer waxa fiican dhinac wanaagsan in laga fiiriyo ma garanaysa arrinta sadarteeda waxaan dhihi lahay dadka muslimiinta oo gaar ahaan Soomaaliya iyo Yurub aan joognaa waxay nooga baahan yihiin tabaaraynta iyo wax taritaanka iyo tabantaabinta iyo waxbaritaanka aad bay nooga baahan yihiin intaasna waxaan ku daray halkay ku soo gunaanadaya waa in cadaaladna ku darnaa marka wax qaybinayno waa inaan maartay wax qaybinta cadaalad ku darnaa waxa la yiri islaam baa 4 carruur bay haysay qaarna eedii u ahayd ama aayi u ahayd qaarna ayada dhashay markay caanaha siinayso labada ay dhashay waxay tiraa war qurquriya labada kale waxay tiraa war kabada ay ku tiraa marka wax weeyaan cadaaladuna waxa wanaagsan weeyaan wallahu a'lam Soomaali ka dhici jiray hadda ka hor sidii ay kafaalo uga qayb qaadatay soo bandhigitaankeeda waxa ku qoran Maxamed Aadan oo ka sheekeynaya ama sharaxaya sidii ay wax u qabteen iyo sidii wax u dhaceen labadaba محمد تفضل. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. قول كان فقرنا إن شاء الله كلمة يرنا نكرها هيو وحوي قبض كي هذا كفارو أباريه دعاي سنة كهر الصومالية. هذان ربنا كهذا الأبارة وحكت ترجمة يسورة عن الجديد. حوي مكتوبة كشرة لكن waxaan u jeednaa dadkii oo gaajo iyo haraad u dhimanaya xoolihii sidii oo kale iyaguna haraad iyo gaajo u dhimanaya doogii xooluhu ay cunayeen oo iyaguna maxaa la yiraahdaa darta abaarta dhammaaday taa marka waxay la mid tahay xoolihiina inaysan cunto aysan haysan marka arrinka annaga reality aan ka shaqaynaynay qofkii raba inuu wax ka fahmo abaaraha wuxuu u baahan yahay maxaa la yiraahdaa inuu fahmi karo arrimaha dareen u leeyahay reality marka saas ahaayeen waa dad Soomaaliya waa dad Islaama anaguna waxa weeye arrinka waan ku imtixaamanaa haddaan dad Soomaaliya ahayn sawiradan way soo noqonayeen qofka Soomaaliga waxa weeye way dhimaysaa adiga waxa weeye maanta waxa ku buuxa maxaa la yiraahdaa furunjeerkaadi guriga lacag waa haysataa arrinka marka imtixaan buu ku yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka weydiinayaa marka dadka wax garadka ah dadka culimada dhalinyarada maxaa la yiraahdaa arrinkan way wada istaageen in yarna waxaan ka dhahayaa kafaalo waxaan ka qabanay dad badan ka shaqeynaya arrimahan jira runtii iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka u saaro qayb weyn waxaan ka qaadanaya arrinkan iclaanku shay aad muhiim u ahaa waxaan xasuusanaa sanadkii hore waqti waxay ku aaday wadankan iskoolada lagu soo noqonayo marka journal kastoo afurtid Soomaaliya ka hadlay abaaraha ka hadlayeen maxaa la yiraahdaa TV-ga hadda daartay abaaraha laga hadlayay iclaan channelada dhan kuwa Soomaaliga kuwa kale marka runtii arrinkan iclaanku qayb weyn buu ka lahaa dadku inay wax bixiyaan ay fahmaan dhibaato inay jirto anaga kafaal ahaan waxa weeye channelada Soomaalida ah baan nagala qayb qaatay Somali Channel Home Cable ila Al Jazeera qaybta Carabiga ayaa waxqabadkii kafaalo ku soo deysay sawirkan hadda aan u jeedna waxa weeye waxqabadkeena uu ka mid ahaa dhalinyaro waqtigooda u horay maxaa la yiraahdaa isticmaalay juhdigoodii inay walaalahooda ay wax taraan waqti dheerna shaqeynaya runtii natiijo fiican ka gaaray marka halkaas waa ujeedin muslim iyo gaalba waxa weeye waa laga qaadayay dadka Soomaalida ah inaan tacaawun ka gaarsiino dadka tirada badan qaybfalayaasha ah wadamada kala duwan joogay Sweden kamid ah Denmark Norway ila Soomaaliya natiijadii maxay noqotay wixii la qabanayay
natiijada marka waxay noqotay alxamdulilah wax fiican bay noqotay ilaa 1 milyan oo kron ayay noqotay tirada dadka la gaarsiiyey 10,000 oo qoys ayay ahayd tan arrinka aan rabo inaan wax ka dhaho waxa weeye anagu markii aan aruurinaynay lacagahan hadafkeena wuxuu ahaa qofka marka wax la weydiinayo weliba Soomaaliga ah inuu isku dayo hal reer ama hal qoys inuu mataqaana kafaalo qaado cuntadooda iyo biyahooda u bixiyo marka yoosha aanu rabnay marka qofka wax la weydiinayo taas ahayd barnaamij waxaa jira dadkii qaxay dadku badankooda waxa weeye way ka qaxeen wadanka xerooyin bay aadeen waxa way safarro aad u dhaadheer oo qatar ah ay galeen dadkaasna waxay u baahnaayeen in la soo celiyo si kastoo barnaamij aad qaali weeye waxa weeye loomana hayo runtii maxaa la dhahaa in lacag lagu dhumiyo laakiin dad tiro yar ilaa 50 qoys ayaa guryahooda lagu soo celiyey guri bay u baahan alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin Allah subxaana watacaala ee maadka leh marka xigtana waxaan mahad celinaya runtii sharafta kasoo qaybshay kulankan intaanan qodobada mawduucan ku qoranaynin waxaan rabaa keliya inaan mulaahadayar ka bixiyo hadafka guud aan horta u nimi magaalada Itubori horta hadafka guud mashaariicda hadda maxamedna uu ka hadlay oo abaaraha iyo ka anugu hadda ka hadli doonaba oo waxqabad dhacay oo 2011 ah idinkuna qayb ka ahaydeen dadkii kuliyey inay ogaataan waxqabadkii oo maqal muqaalahaba isla maraantan bulshiiraad laftigooda isu dhish ku qoran aad kulli heli doonta biina baarin hadafka koowaad ay ku nimi magaalada Itubori waa kafaala magasiin oo runtii aan kusoo bandhigi doono macluumaad ku saabsan Soomaaliya Yurub degan bandhigaas insha Allah waxaan u dadejin doonaa Jinaab Mukhtaar ayaa markaas baa hadafku yahay marka wax la iska ururinayo lacagtana biina baarin mid doona haddaan daba gudbo mawaadiicda aan waxyaar ka oran doono waxyar waxaan ka oran doonaa kafaalo oo laga yaabo dadkeenu inay dad badan rag cusub cusub inay jiraan oo macluumaad inay ka ogaadaan ujeedooyinkeeda waxqabadka abaaraha waa laga hadlay laakiin inta u gudbin mashaariicda iyo ujeedooyinka hay'adda kafaalo afartan bay u kala qaybsamaan oo wacyigelinta oo kafaala magasiin hogaaminayo iyo seminaarada aan dalka gudihiisa iyo dibadda ka samayno waxbarashada oo ubuucda labaadena noo ah oo ah in dadka wax la baro microfinance oo ah dadka masaakiinta tabaalaysan oo aan mashruucaas koray isagoo faahfaahsan aan bandhigi doono insha Allah gargaarka oo isaguna ah qaybaha maxaa yidhahdaa hay'adda ka qayb qaadata xagga percentage loo eego boqolkiiba 44 wacyigelin iyo maskax kobcin iyo dib u habeyn qaab fakarkeena ay hay'addu ku mashquulsan tahay dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisaba waxaan oo qabaya waxbarashada percentage ah microfinance oo 19 ah iyo gargaarka oo 3 sidoo kale qaybta runtii abaaraha kaliya kama qayb qaadan laakiin waxaa jira mashruucii qalabka iskoolaadka kafaala schools uu lahaa oo runtii qayb weyn ka ahaa qayb weyn ka qaateen waana feedback iyo iskoolaadka kafaala schools oo dhan la geeyey qalab hadduu ahaan lahaa maxaa yidhahdaa quraas iyo dhimis ahaan lahaayeenba sidoo kale kafaala schools guud ahaan runtii website-ka ka akhrisan doonta laakiin waa dalad guud oo iskoolaadka kulmiya هذا مساجد كان أو كم دي مساجد كان بسناي حرمها وبقوا بنصير رنتي أو طلب على المساجد طيسية هاي قلب عسكري ويالو قلب قرنا الدولة يعني كقارني هو أركتا إن تطلع عروضه ولم يقبلوا عليه قيد ولكاب عليه سيدا فلا قيد سبورتس كان كفارة قيد بقطع هاي هي قيد بهم ترى السكولات أنت أورك الحين قلت وباعي هذا هو مشروع اسمه فلان شهر معي هاي شروعه سوى قابا هذا البان الجرين ولا سوى بس كميت بقى قفك إن سيده وكلام السمع إلا برا يين وقفك قعنتا محايل هذا هو محبريه كيرا ونعسن مايكرو فاينانس أما مشروع اسمه فلانشو لا سوى المكتب جميع هذا لكن سيك لو دلو مشروع اسمه فلانشو رنتي وحنوصل لنا أرونتي أنت كهيني كفارو يدك مساكين تها maadaama ujeedooyinka ugu muhiimsanaa ay ahayd shakhsi xor ah maskax ahaan iyo dhaqaale ahaanba inuu qof aan soo saarno oo wacyigelintan iyo maskax kobcintan ay qayb weyn ka tahay suu qofku u noqdo waayo xor muxuu qofku markuu qofku xidhan yahay waxa weeyaan dhaqaale ahaan xor uma ah maskax ahaanna xor uma ah qofku wada haysataa wixii aad u sheegtid unbuu qaadanaya kasoo qaad qofka aduu maanta biish haddaad wax talada aad u sheegtid u yeeli waayo dabiilka ka goosanaysa marka qofka maskiinka ah markuu qofku xidhan yahay waa taas oo kale oo qof dhinac laga haysto marka asalkeena waxa weeyaan qofku inuu asal maxari noqdo oo si cidna ku xidhnaan kobcinta aqoonta iyo waxbarista inay hay'addu xoog saarto oo waqti u heshona qayb weyn bay ka ahayd
maadaama dhibaatooyin badan runtii ay jireen dalku burbur lahaa maxaa yidhahda waxbarashadii dadkii qofkii isagoo baahan xagga waxbarashada uusan runtii aada uga fikerahayn bahayadu haddana muddo 2 sano ay mashruucan daraasaysay xalal badan baan marka la isweydiiyey sideebaa qofkan ama dadkeena masaakiinta ahba sideebaa wax loo tari karaa oo isku filaansho loo gaarsiin karaa isla mar ahaantan loo gudbi karaa xaggii maskaxda iyo qofka inuu qalbiga uu xor ka noqdo haddaba hay-addu qiimeyn fara badan iyo cilmi baaris badan bay samaysay mashruuca microfinance ma ahan waxay kafaal ugu horreysay laakiin waxa weeyaan adduunka o dhan baa runtii isticmaala waxaa ugu caansan ninka maxamed yunus liiraa nobel prize ku qaatay 2008 magaalada Oslo runtii waa nin Bangladesha bankiga Grameen Bank uu leeyahay aad buugaag fara badan oo ka qoray sidoo kale way jiraan dad la mid ah kuwaas qaybta cilmi baarista ah sidoo kale waxaan xuraamanay ama waraysiyo la yiraahdo waalidiinta laftigoodii maadaama iyagu dadka agoonta ama masaakiinta gacanta ku hayeen xal sidee baas uga bixi kartaa waa dadka waxa ku jira dad wax ganacsan jiray ama dumar gabdho shaari ah ku jira sidee baa uga bixi kartaa dadka maanta ku haysa xulul baa la weydiinayay maadaama dadka mar walba taganay si aan u ogaano qofkan waxa uu damacsan yahay haddii ay ka dhiman tahay aqoonna loo kobciyo si dhaqaalaha hadday ka dhiman tahay dhaqaalaha loo waxeeyo sidoo kale mas-uuliyiintii xarumaha laftigood maadaama gacanta ay ku hayeen baan waraysanay odayaasha culummada gobolka marka joogta si ay markaa nooga saacidaan macluumaadka aan diyaarinay marka macluumaadkaas oo muddo 2 sano ka badan qaatay isku soo ururnay oo waxaan ka diyaarinay qorshe istiraatiiji ah iyo inaan markaa u hawlgalno aqoonta aan gacanta ku haynay badiyaa hortana ka bilowno intaan meel kale la gaarsiin miisaaniyadda markaa samaynay kadibna hawshii ayaan u hawlgalnay xarumaha markaa ugu dabeeqay hay'addu gacanta ay ku haysay xarumaha dhowr bay u qaybsamayeen qaybna carabta mas'uul ka ahayd qaybna waxa weeye Soomaalida mas'uul ka ahayd carabta inta iyaga mas'uul ka ahayd iyaga ayaa isku xidhay laakiin tay kafaalo gaarka ugu mas'uul ka ahayd waa xarumahan ayay ahaayeen agoonta ku jirtay markaan isku qiyaasna waxaan idhahaa agoontan mashaariicda loo soo eesay qolo qoys walba uu soo bandhigay waxaa ku filaan kara lacag $9,900 lacagta marka si aan u helno ayaa markaa kulugeed qabanay 2011 weli joognaa si aan warbixinta aan dhegeysan lacagta ayaa marka waxaan galnay sidaan kusoo xarayn lahayn maadaama kafiilada qolkood daadan ka filanay 10% kafaala ay kobaysay guud ahaan marka 147 qoys ayaa markaa mashruuca isku filaanshaha loo sameeyey وأركزان خير فلاش سوماس رنتي ذكرنا سومالي نبتة جوجان با ضد خير بدن وي أنا خير جعل وأنا سوي شغل رنتي شيء ويان خير بدن بعد كبوحة في مشاريعنا فرحة بدن يقول من الأهبة يو ديب قفل بدي أتكلم عن سطوع ولا سجار وهايستو عندنا مرة والبحوق ساريا ديب تنتعال السجارة أدو غير وانا غمرتا وأنا كمان بالنتيجة دي نقدر مرة وأنت هذا الكيو هامر هذا مركز يد مقال إلى مركز يدنا إن هذا وتام سي أبو أركتام إن شاء الله كلي. أنا سنة يبيها كده من إيه $100 بقاين شري ولا $10 مصروفة $10 برشة. markii dambana $90 buu soo faayay maxay la soo saarto meel dhigtay ninna waa shaqaaleysiiyey runtii dhalinyaradeenii dhibaatada waxbarashada waxyaalo badan baa marka microfinance-ku kaabayaasha dhaqaale qayb weyn buu ka yahay dhalinyarada suuqa daadnafteeda qayb weyn buu ku yahay haddii shaqooyin loo abuuro marka waa arkaysaan qof maskiin ah ayaa shaqo loo abuuray isagiina qof kale uu sii abuuray inay marka mar walba wanaagsan tahay runtii in qofku uu isagu isku filaansho gaaro waxyaalaha qaarkaasaan anuu kale aragnay waxaa ka mid ah dadkii waalidiinta markaa hayay agoonta waxbarashada muhiimadu maysan arkahay koorsooyin baan samaynay control wax walba baan samayn jirnay wuxuu kule cunuga waa u baahan yahay maxaa baraaniga hadda markii uu meel soo dhigana wuxuu kule waxbarashadan kula dadaalaya marba arkaasaan fikirkii laftigiisu in qofku isbedelayo oo arkay markuu horta bal calooshii baahnay wax la geliyo in marka carruurta mustaqbalkooda uu ka fakerayo marka taasna waa fawaa'idka ay ka mid tahay qof runtii inaysan jirin wax ka wanaagsan qofku inuu isku filaansho gaaro هذا مشروع مايكروفاينانس مطلوب موضوعية فائدة كبيرة تلك مساكين في أوان ما يما قفل بانك فلي ونجم إلى مانتا كمان هو يربع بيلا وعلى بيلا 30 سنة بيلا أنتوا هلكن شوفوا بيلا إلى يومنا هذا أنا ما حساب تمام أنا اسمه ويديو هذا ما أنت ليمتد أنت قفل قوة تعلق سيدات بلس مثلا ما قوة ميان سقف وصابان وقف فلان شلا جالسيو أدو لفتي على قليل كسيكوريا ده أبوك وبس عرضت أباناسا مركب مايكروفاينانس كو
runtii mashruuc isku filaanshuhu daawo wuxuu yahay qof walba oo inuu qofkan horta isku filaansho gaadho dalkiina dan buu yahay oo qofkii dalkiisiibuu joogaya waxna uu qabsanaya dhaqaalina uu kabcaya isaga laftigiisa kalsooni baa galaysa dadka hadda waxaa arkaysa warasiyada iyo dabaqal badan oo ku samaynama inuu qofku leeyahay kalsooni baa galaysa awal qax iyo fakar iyo dhowr baad maxaa yidhahdaa kollay qofku u baxay waan ugu iman doonaa kafaala magaasiin bal dadkii soo dhoofa meeshay ku dambeeyeen xaaladdu meesha ku sugan tahay laakiin bal dalku kale wuxuu u baahan yahay mashruuca isku filaansho haddaan koobo in mar walba aan ku dadaalno mashruucaas isku filaanshaha ma halkaasuu ku eegaya aqoontu mu ku ekaa may weli wuu socdaa mashruucan mar kasta iyo waqti kasta oo laga qayb qaadan karaa haddaba waa wadnaa oo qaybo cusub baan ka filin doonaa biidnaahi baari mar walbana waxaan rajeynaynaa sida mashaariicda uga mid yahayba inaan mar walba sanad walba qorshe aan ku darsano si gobolada qayb ka mida mar walba aan u fulino si markaasi ay ilaa dadkeena iyo kaabeesha dhaqaana kor usoo kobco dadkeena masaakiintana ay meel gaadhaan ugu socon doonaa biidnaahi baari intaasaan kole dhinaca mashruuca isku filaanshaha kusoo koobaya war badan waxba tari maayo waxaan u gudageli doonaa insha allah hawshii iyo hadafkii aan nimid marka kusoo wareejinaya mikrofoonka farxaan mukhtaar alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd marka hore sidii saaxiibadeeda hore horta waxaan kaga mahadcelinaya runtii soo dhaweynta iyo marti sharafka quruxda badan ee reer Youtube ay noo fidiyaan marka labaad inta aanan mawduucyada gelin hordhac yar baa waxaan ka sameynayaa guud ahaan mawduucan aan geli doono sideeda qof markuu dadka wajahayo ama dadka afgargareynaya sida kale yidhaahdaan dhowr qaab unbaa dadka loo wajahaa qaab ah qayladaan kicin ama sida cumar dhurwaayo kale sheekadii markaan yareeya noola akrin jiray war waa waray rib baa jirtay waa qaab ah ama la oran karo waa qaab yani tarhiib ama cabsigelin ah noocay doonta ah qaab ah rajagelin ama tarhiib ah oo adduunyadu dhan way dhalaalaysaa khayr baan wadnaa saasaan sameynaa saasaan yeelnaa waa qaab kale qaab saddexaad oo labadooda u dhexeeya jira oo ah qaab badanaa abaara caqliga iyo cilmiga oo rational iyo mantiq labada qaaboo hore way dhici kartaa dadka loo approach gareeyo dadka qaar inay ku habboon yihiin in mar walbaba khayladhaan loo geeyo ama dhibaato loo sheego ama rajo un la geliyo laakiin dadka qaarna rajada keliya in la geliyo ku habboon yihiin laakiin dadka badankood ama dadku badan ilaahay inta badan la hadlayo ilaahay wuxuu doortay dadka inuu caqliga kala hadlo diinta islaamka waxaa loo soo dejiyay waxaan moodaa in rationality-ga mantiqa cuquusha la abaarayo waxaa laga yaabaa 21 sano ama 22 sano ku socod Soomaaliya ku jirtay labada qaabo hore oo ku saleysan caatifada kicinta dadka inay waxyaalaha burburka badan Soomaaliga ama waray dibaa dhacday waxa la boobay waxba la dhacay reer baalgudu waxba la lahaa ama wadanka dhan bari baan nabad ka dhigaynaayo rajo marna rajo aad u fara badan marna qoysasho aad u fara badan labadaasaan u dhaxaynay 22 sano intaan labada u dhaxaynana Soomaaliya yani ilaah baa garanaya waxaan ku yiraahdaa goortay ay si fiican uga bixi doonto wayna ka bixi doontaa laakiin waxaan ka bixi doonaa markaan qaabka wasadka ah oo kadalika jacalnaakum ummatan wasata qaabkaas aan doorano qaabkaana waa qaabka malaa'ikta dhan markaa fiiriso loo soo diray balse dunida marka la abuuray oo la sameeyey ilaahay intuu markuu doortay inuu bini aadamka dhul keeno asaga malaa'ikta sidii tala ahaan ku lahaa inni jaacilun fil ardi khaliifa doodii ayaga ilaahay dhex marteen qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa ay lahaayeen malaa'iktu waxa lagu qanciyey maysan ahaan يعني قاب عاطفيسن ما أهان قاب ما أهان إيش رجلنا ما أهان لكن علمي عقلي الوقت هو حال يري علم آدم يعني حال توصي بني آدم كنا نقول كودي بين إهلويين نبي آدم بقى مع حال صبري مع معلومات كيودن تريده معلومات كسر ملائكة سجوده إبليس نكو كبره تعرفت كذا وحال لقى فهمي يعني قف كبرنا ونايت الدنيا علم جاي عقل جاي منطقة وقوقا عيان قف كان دوني نسل إبليس نكو كبره taawto taas maxaa marka arinka ka wada runtii qaabka aan dooranayno inaan idin la hadalno waa qaabkaas yani
sunnada rabbaaniga ah malaa'igta lagula hadlay nabi muuse markuu fircoon maanay kula hadlayay maxaan ku iraahdaayo ii sheeg nabi nuux haddaa fiirisaan qoladiis ama nabi luut alaysa minkum rajulu rashiid waa isagii lahaa nabi maxamed markaa eegto asxaabtoo dhan wuxuu abaarayay khaalid wuxuu kusoo islaamaa la yidhaahdaa khaalid oo caqligaagii kuu diiday inaad islaamka aragtaa lagu yidhi caqliga ilaahay ku siiyey inaad islaamku aragto kuu diiday marka runtii qaabkaasaan dooranaynaa inaan ku wada hadalno waana qaabka aan isleenahay yani hadafka ugu weyn ee dadka soomaaliyeed ay wax ku wada qabsan karaan waana qaabka uu magaasiinkan ku saabsan yahay ama uu wajahay kow waa midaas waayo aan u dooranaynaa qaabka inaan idinla hadalno waayse idinka waay yani maxamed caasho maxaan ku irahda doctor axmed farxaan waay yani maxaa anaga noogu yeertana kafaalo runtii waxaan ugu yeeranay magaalada labeenteeda inaad dihiin baa noola sheegay dadkii liidkii magaalada dadkii xagga ganacsiga dadkii xagga bulshada wujuuhdeeda ka muuqday dadkii ummadda mas-uuliyiinteeda ahaa dee dadkaasna waa dad ku habboon badan in caqliga laga abaaro mise anaa mooday balse waa tihiin balse waa hubaa maana moodin taa waa midda labaad Ituburi maxaan u dooranay Ituburi dhowr sababood magaalooyin kalena waa tagnay waxyaala qofka isweydiin karo wey magaalooyin kalena waa tagnay laakiin Ituburi khaasatan inaan meel saan oo kale ugu nimaano walo magaalooyin kale ka dhaceena dee waa magaalo taariikh Scandinavian guud ahaan ku leh waa sida magaalada saddex caasimad u dhaxaysa Soomaalida joogtana dad yani xidhiidh ku leh runtii dadka ugu badnaa ee Yurub muddo dheer joogay cuqul iyo afkaar badan inaan ka faa'iidi karno aan filayn waay haddaan kusoo dhawaado inta haddaan uga baxo hordhici ahaa bahalka muxuu yahay marka ujeedada magaasiinka haddaan galo magaasiinka qorshahan qoran magaasiinka loo dejiyey ama hadafka magaasiinka laga lahaa muxuu ahaa يعني arrimo waxaa laydin tusayay hadda samafal arrimo waxaa laydin tusayay abaaro muxuu yahay marka se arrimahan magaasiinka kasoo gelaya magaasiinka wuxuu kasoo gelayaa qaybtii wacyigelinta hadafka ugu weyn wuxuu ahaa in kor loo qaado qaab fakarka maskaxeed ee ummadeena in loo soo tabiyo macluumaad sugan oo falanqaysan ma aha kaliya macluumaad qalalan laakiin macluumaad falanqaysan oo qofka caqligiisa dhaqaajin kara in loo celiyo dadka runtii halhays waxa u ah dadka in loo celiyo fahamkoodii saxda ah taasaan runtii ula jeedno dadka Soomaaliyeed aslan fahamkooda wuu saxsanaa wuuna saxsanaan doonaa just waxay u baahan yihiin xusuusin in lagu sameeyo oo la xasuusiyo in loo noqdo sidaas yani khalifatullah fil ardi sababta in lagu noqon lahaa inay tahay faham sax ah ujeedada guud ama waxaan oran karnaa ama kusoo koobi karnaa runtii waxaan u baahanahay inaan Soomaali nahay hadalkayga ugu fakartay waxa la yiraahdo paradigm shift kulli ma jecel inaan kelmadaha luqadaha isdhexgeliyo laakiin paradigm shift waxaan u maleynayaa nin la yiraahdo Thomas Kuhn ninkaas keenay oo waxay ku saleysan tahay in qofka aragtida uu meesha wax ka arko inuu bal si kale u fiirin karo qaabkii hore 22 sano u eegaynay qaab ka duwan inaan u eegi karno inaan u baahanahay caqliga ilaahayna siiyana inaan new level of thinking oo qaab cusub inaan bal ugu fakari karno inaan wajahno runtii ahdaafta ugu weyn saas ahayd annaga kafaal ahaan mid baan ka cudurdaarayna dadka Soomaalida waxaa laga yaabaa markaad wax usoo bandhigto yani dadku waa noocyo badan yihiin qof waxaa laga yaabaa waxaan inay si mantiqa u taabtaan qof waxaa laga yaabaa inuu si negative u qaato qof waxaa laga yaabaa inuu mulac iyo wax ka dhex arko annagoo dadka wax badan isku mashquulinayn laakiin haddana hadafka ugu weyn waxaan aan leenahay hadaf weeye ma aha annaga inaan nahay dadka bedelay ama annagu inaan nahay dadka wanaagsan ee waxaan soo arkooday oo sidii dad loo soo diray dadka inay iyagu u yihiin dadkii wanaagga tusi lahaa bani niman masaakiin oo dhalinyarana runtii waan aqrinaynaa laakiin caqliga ku jira maxamed iyo farxaan iyo caasha iyo cilmi waxaan rabnaa intaan halkan kusoo ururino inaan bal dib u eegno marka oo dib u isticmaalno oo si kale u aragno marka taas baan kusoo koobaynaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu shirkeena noqon doono mid aan wax badan kala noqon doono kafad way magaasiinka hadafkiisa hadaan ka baxnay muxuu ku saabsan yahay intaan ma intuu ku saabsan yahay galin horta meelo badan baan kasoo yara bandhignay halkan shir sidaan oo kale ah oo xoogaa laakiin ka dadbadnaa ama ka baaxad weynaa baan Oslo noo arkaysaan baan filaya baan Oslo ku qabanay oo culimada iyo
siyaasiyiin iyo aqoon-yahan adigu labayntii reer Norway ama reer Oslo oo gobollo badan runtiska yimid ay ka qayb qaateen shirkaas sawiradiisa un baan waxay ka tusaya oo ka dhacay markuu magazine soo baxay 1 June sidoo kale waxaa noo suurta gashay inaan xagaagii July aan wadanka qaybo ka mid ah Hargeysa, Boorama, Boosaaso, Garowe halkan waa Boorama oo jaamacadda Amuud arday macallimiin wax ka dhigay macallimiin iskool wax ka dhiga laftiisa wadankii magazine-ka aan gaarsiinay halkan waa Hargeysa halkaana waa Boosaaso iyo sidoo kale Garowe waayahay intaa wuxuu ahaa 3 bilood oo magazine jiray wuxuu ku saabsan yahay oo hadda magazine-ka maanta halka uu noo siin doona insha Allah 5 qaybood qayb waraysi kala duwan oo dad Soomaaliyeed ah u badan dad reer Norway ah iyo waaxad dawladeed oo Norway ah qayb tirakoob iyo falanqayn Soomaalida Yurub imisa Soomaali waa Yurub joogta imisa Sweden joogta Norway joogta sidaas waxbarashada article ku saabsan oo runtii rag jaamacado wax ka dhiga ama iskoolo wax ka dhiga oo waxbarasho muddo dheer ku mashquulsanaa ay ka qoreen tirakoob iyo falanqayn Soomaalida Norway labadan qaybood dal diirad saarid waxa dhahan isticmaalnaa ama marba inaan nuqulba inaan dal xoog saarno marka maadaama kii ugu horeeyay waa Norway baan xoog saarnay inaan bal horta Soomaalida Norway aan in depth aan u galno oo yani qosno aan si fiican u dhexgalno laga yaabo kan soo socda inaan Yurub joogta imisa Soomaali ayaa Yurub joogta kulli magazine-ka tirada kooban ka arki doontaan laakiin Yurub waxaa jooga markaan muddo 6 bilood aan ka shaqeynayna bishii January 2012 ilaa June 1 kusoo baxay waaxad dawladeed oo kala duwan waxaan ku idhaahdaa macluumaad adiga la hubo oo waaxad dawladeed dal walba aan ka keenay ilaa EU-da United Nations-ka iyo meelo kala duwan waxay marka muujisay Soomaalida Yurub joogta oo sharciga leh ama ha noqoto kan yar ama ha noqoto dhalashaan qaxootiga inay yihiin 300,000 oo kun 354,322 ruux 400 oo kun oo wax yar dhiman adigu 500,000 baan xoogaa yar ku dhownahay wadamada marka ay ugu badnaayeen waxa ugu horeeyay Ingiriiska Sweden baa ku xigtay halkan aan wuxuu tusayaa marka ragga iyo dumarka markaan isbarbar dhignay mar walba waxaad dareemaysaa dumarka wax yar ragga wax yar badan buluuga waa ragga dumarkuna waa midka cas Sweden baa markii moodaa inay ayadu dumarka iyo raggu ay wax saas u kala badneen ilaa 500-600 qof u kala dhexayso meesha Holland oo kale ilaa 500 tahay Norway ay tahay ilaa 900 Denmarkna laftigeeda saa uma kala badna halkan waxaan ku muujinaynaa guud ahaan boqolkiiba markii boqol la yiraahdo imisa Yurub joogta Soomaalida ugu badan boqolkiiba 53 Ingiriiska degan yihiin taa laftigeeda waxaa ku jira dadkii Scandinavian-ka iyo Yurubka kala tahay dawladda Ingiriiska waxay iyadu tiraahday Soomaalida British-ka ama Britain ku leh sharciga ayuu waa 130,000 Yurubta kale ka yimaadeen kulli magazine-ka ka arki doontaan dalka labaad oo kusoo xiga waa Sweden boqolkiiba 12 baa jooga markii Soomaalida Yurub la kala qaybiyo Holland kusoo xigta boqolkiiba 9 baa jooga Norway boqolkiiba 8 Denmark boqolkiiba 5 inta kale markaan leenahayna waa Faransiiska Spain Belgium meelahaas oo dhan boqolkiiba 13 Finland يعني table كسنت جود بان حسينا Finland وجوجتا لكن بار بلن ديرت صارت مركان لنا إن شاء الله كل مقال كاس ماشى كافسن دونتان نرويج بان سيف عن قطع تعبان إن دلهان سو بسنة هاي يسياسة لهان يدينعي فربلان كدينا مجازين كلهم تعبان يا سوالد النرويج أنت دلتي أنت دمتي سوق شيء أنت كبودي سنة كي لبكون يلبي تمانكي كوي تمانكي sida ka muuqata halkan boqolkiiba iyo 50 soo galay marka Soomaalida Norway badanaa waxa la yiraahdaa waa dad urdan ah cusub oo ay waxa dareemaysaa 2000 waxa joogay 9,000 maantana waxa jooga 29,395 marka muddo 12 sano ah imisa soo gashay dad ku dhow 20,000 iyo xooga dadka dhintay aad uma badna oo boqolkiiba 1 way adigu wax 100 qof ka yaraahayeen dadka ka guurayna ay laftooda runtii maysan yareysaneen boqolkiiba 17 bay ahaayeen tirada saxa magazine-ka ugu imaanayna waxaan kaloo Norway taabanay da'da Soomaalida reer Norway halkay u badan yihiin
waa iska fiican tahay dadka da'dooda inaad ogaato haddaa nin ganacsadaa tahay u baahan tahay waayo maxaad suuqan marketkan maxaad markaad danayso yani wax sidee baa geynaysaa u baahan tahay sidoo kale waa u baahan tahay haddaad tahay nin sheikha muxaadarooyin soo jeedi doono dadka jamaahiirta ku imaan doonto maxay tahay sidoo kale nin dhalinyarada guurdoon haddaad tahay laftigeeda u baahan tahay inaad ogaato dadka meesha jooga dad dhalinyarada ay u badan yihiin si dad waaweyn sida ka muuqata kan dhasha ilaa 10 jirka baa ugu badan oo 9 kun ku dhow 9 kun baa waddanka joogta midka 11 ilaa 20 jirka baa ku xiga 11 jir ilaa 30 jirka ku xiga marka halkan waxaa ka cad tirada ugu badan reer Norway inay dad 30 sano ka yihiin ama dhalinyaro yihiin marka sida kale dadka da'da 60ka waayeelka ah aan dibadda yimid Soomaalida ah iyo 50ka kasii sareeya waa dad tiradooda ay kooban tahay jaamacadaha markaan taabanayno Norway boqol rag iyo wiilasha aan isbarbar dhignay boqolkiiba 27 waa gabdho boqolkiiba 23 waa wiilal tiradu ma badna insha Allah taala meesha ku arki doontaan xagga waxbarashada maadaama ay isbaahay dambiyada laftigooda aan fiirinay Soomaalida badan ay dambiyada lagu qabsado maxaa kamid ah dambiga ugu weyn oo Soomaalida badan lagu qabsado daroogada iyo qof markuu kelmada daroogada maqlo uu naxaya bilay dadku ma daroogsadaal u badan yihiin laakiin waa tahay in la naxo laakiin waxaa ku jira mid anaga daroogo aqoono jaadka waxaa laga yaabaa qofka xoogaa inuu dhaho okay jaadka inuu daroogo yahay xagga Soomaalida xoogaa caalam su'aal ma ka saar laakiin ayaga koobtooda saa ogtihiin Sweden iyo Norway waa daroogo kaasa ugu badan waxaa ku xiga boqolkiiba 17 gacan ka hadalka may waxaan dhihi lahaa boqolkiiba 17 waxaa ugu badan gacan ka hadalka baa ku xiga runtii Soomaalida xoogaa lagu eedeeyo dadaanan dhaliisha iyo waxaas adkeysan karin oo laga yaabo qofku inuu ficil ku jawaabo sidoo kale musuqmaasuqa oo laga yaabo lacagahan dhaqaalaha iyo ceebta iyo canshuurta iyo waxyaalahaas listimariya inay lagu leedahay sharciga gaadiidka traffic in laisku ganaaxana ayagana waa qayb ka mid ah qaybaha lagu haysto qaxootiga soo galay baan laftigiisa aan isbarbar dhignay sanad ka dambeeya sababtay u badanayeen ay 10 kun u ahaayeen ama 9 kun u ahaayeen 2 kun haddana u noqdeen 9 kun waxaan ku fahmaynaa halkan sanadihii hore 700 iyo xoogaa soo gali jirtay meesha hadda 2012kii oo magaasiinku soo baxay bishii lixaad oo la gaarin 2677 qof baa xiriyaha ku jiray oo shalay sugay sanadka markuu dhamaadana double 5 kun way noqon doonaan ama 6 kun oo dhici karta marka saasa ku dareemaysaa inay Soomaalida Norway yihiin Soomaali curdan oo soo kobcaysa meesha laga yaabo Soomaalida Sweden inay laftigooda qaar curdan waa yimaadeen laakiin in badan inay horey ku joogeen halkan wuxuu magaasiinku ku taaban doonaa sidoo kale arrimaha bulshada yarkan in dhalinyaro oo runtii asoo wiil yar la keenay daroogada yani arrimaha waliba daroogada teeda weyn faraha la galay ninkan si fiican buu uga sheekeynayaa qisooyinkiisii ilaa dhiiggiisa in laga miira noqotay article aad u qurux badan runtii dareen leh oo qofka waalidka ah qofka dhalinyarada inuu akhristo u fiican waa asagana ku wareysanay masaajidka Soomaalida waa kii masaajid Tawfiiq oo bisha November la furi doono laakiin cibaadada iyo masaajidada Soomaalida halkan ku taabanayna halkaas qaxootiga article ku saabsan way xaggaasna waa sharciyada iyo dambiyada iyo arrimahaas sidoo kale waxaan booqanay gobolada Soomaalida waqooyiga ama magaalada Buudo oo waqooyiga Norway oo ku aadsan kor u meeyo dhinaca kale ka jirta Soomaalida ku nool oo xilligan isheeg November iyo salaadaha si tukadaan July say waxaan Ramadaanka u awoodaan rag odayaal meesha u tagay soo wareysanay wareysigooda xiiso badan yahay in la akhriyo waqooyi galbeedka waddanka magaalada caasimadda labaad ee Bergen laftigeeda Soomaalida joogta halkan qoladan waaxdan dawladeed hay'adda carruurta dhowrta ama banka loo yaqaano Norway ama Soomaalida yiraahdo kuwa carruurta qaata laftigooda u tagnay Soomaalida Norway waxaa lagu imtixaamay in carruurta laga qaato arrinkaas soo maqasheen baan filaynaa sanadkii 2009kii tirkoobadii dambe lama hayo laakiin 2009kii 929 ilmood baa hal sano gudihiisa lagu qaatay marka gadaalna way kasoo daraysay marka arrinka laftigiisa in la ogaado waa arrin loo baahan yahay ururada ardayda waa qaybo aan wareysanaynay ka mid yihiin masaajidkan Abubakar baa la yiraahdaa Daraaman buu ku yaalaa waa magaalo Oslo dhinaca galbeedka ka jirta arrinkaas ilaa 6 looyar buu qabsaday si qurux badan bayna u xaliyeen marka waxyaalahan u leenahay weeye hadana waxaan lahayn paradigm shift iyo qaab kale in wax loo arko
marka waxaan sheegayna waxaan u keenaynaa cuqulada hadda raggan odayaasha runtii si cajiiba bay arrinta ilma qaadashada u xaliyeen marka in nimankii intii loo tago wixii laga soo qoro ummadda maanta iyo Göteborg joogta ama Stockholm joogta ama Oslo joogta ama Copenhagen joogta loo geeyo waxa cuquusha la isku kordhinayo la isku bedelayo ama qaabka labadan wax loo arko la kala faa'iideysanaya kamid tahay halkaas baan kusoo gabagabeynay runtii magaasinka Amal Express Sweden door weyn bay ka ciyaartay runtii in ummadda Soomaaliyeed macluumaadkan la gaarsiiyo guud ahaan marka waxaan idin taabeenay magaasinka wuxuu ku saabsanaa insha Allah taala magaasinka caadiyan anagu waan gadnaa waan iibinaa caadi ahaanna waxaa iibsada librariyada Norway dugsiyada sare ee gimnaasiyada waa xad dawladeed oo badan Soomaaliya ma akhriyaan laakiin dadka Soomaaliyeed ay u talagaleen Soomaalida laftigeeda xubnaha kafaala ka ah bilaash baan ugu dirnaa qofka gurigiisa aan ugu dirnaa ama xafiiska ka qaataan intii inta ka soo hartana waa ka iibinayna laakiin maadaama aan casuunay waxaan go'aansanay inaan idin qaybno free u siino intii naga soo qayb gashay shirka maxaan ku raacaayo tixgelin iyo sharfid ogeey waayahay gunaanadkii waxaan kusoo gunaanayaa kow waxaan taabtay ujeedada magaasinka ama ujeedada guud aan runtii kugu yeernay waa arrinkii aan markii hore taabanay oo soo xusnay hadafkeena inuu yahay runtii inaan yani ummadda balqaab kale ee ummadda Soomaaliyeed xuquuqdooda isku geyso waxna isku kordhiso bahalkan wax loo asaasay inuu yahay culuum lagu kala qaato waxaana farxad leh rag dakaatiro ah oo meelo kala badan oo kala duwan jooga inay ballan qaadeen inuu nin walba qayb ka geli doono hadda qaybta soo socdana waxaan isku dayi doonaa insha Allah qayb business innovation iyo technology ah in lagu daro qayb economy ah in lagu daro oo nin dad waxa khubaro leh oo xataa inay keento yani inay adiga ku fuudaato adiga gurigaaga jooga inaad macluumaad ka heli karto Soomaalida Yurub joogta ama qaab kale wax u arki karto teeda labaadna waa dhaxalgal oo wuxuu dhaxalgal u yahay afkeena hooyo uu ku qoran yahay oo in bal wax naga haraan laftigeeni ama dunidaas aan wada tagnay oo khibrada ka soo helnay oo Ilaahay rafasiru fil ard inaan wax kala dhimaano ayada laftigeena dhaxalgal buu yahay waxaan kusoo gunaanadiyaa runtii ma aha wax aan leenahay kafaalo magaca kafaala ku qoran ama kafaalo ama wax aan ku faanayna ma waa wax munay ummaddu ku faanto baahan tahay waxa laga yaabaa in maanta halkaan fadhiyaan rag magaasin la qora waxaa jira dad joornaalo kala soo baxa waxaas oo dhan waa hawl wanaagsan oo loo baahan yahay ay dadku wada qabanayaan waxa loo baahan yahay oo naga dhiman kaliya waxay tahay see juhuudan iyo xooggan isku geeya garadhal fiican si ay u yeelato laakiin qof walbaba hawsha meel fiican buu ka wadaa waxaana leenahay mar walba ku talinaynaa bal xagga caqliga xagga mantiqa xagga rationality-ga inaan wax ka abaarno si ummadda uga baxda xagga caatifada iyo inay noqdaan dad lagu guuro mar walba oo qof ama group ay iska rartaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqna waafajiyo halkaasaan ku gabagabeynaya waana mahadsantihiin السلام عليكم. waxaan malaynayaa in badan bal fadhiyo la caajisaan malaynayaa in la dhaqdhaqaaqo loo baahnaa marka waxaan tijaabinayaa inaan hadalkayga soo yaro koobo sida markii hore maqlayseen magacay waxaa la yidhaha Axmed Magan waxaanan muddo ka shaqaynaya imika wasaaradda cashuuraha ee dalkan Suudaan hadda 8 sano ugu dambeeyay inaan xilal kala duwan ka soo qabta runtii markii maxamed la soo hadlay waxaan moodayay inay dhalinyaradu badan tahay laakiin waxaan arkay inay rag badan oo waaweynna joogaan waana fiicantii baan malaynayaa adoo waalidka kolley carruurba guriga kaga yimi fariinta raba inaan idin raaciyana waxaan jecelahay inaan la qaybsatan carruurtiina kafaalana wax badan bay qabato fiican oo lagu ammaano taan raba inaan ka hadlaana waxay ku yara xidhantay daba socotaa tii markii hore laga hadlayay xagga shaqada hadday noqoto waddankan Suudaan waynu ognay Soomaalideena haddii la eego sidaynu inoogu adag tahay marar badanna waxaan malaynayaa sabab badan baa jiro dee aqoon-aan lagu sheegi karo sababta keentay inay nagu adkaatay inaynu suuqa shaqada soo galno intaan anigu mas-uuliyadda kala duwan aan ii sheegay soo qabanayay dad badan baa shaqaaleeyay shaqo kasta oo aan suuqa geyno ama meel ku qorana inta badan dad kala duwan baa soo dalbada dadka soo dalbadaana runtii intooda badan aqoonaad sarraysa leeyihin sidaynu ognahay waddankani Suudaanna shaqooyin badan ayaa laga rabaa muruqmaalka ahaa
shaqooyinka imika waddankan ku hadhay waa maskaxmaada inaad isticmaasho maskaxdaada. maskax markaad isticmaalaysana waxaad u baahan tahay aqoon. aqoontana dee jaamacad iyo dugsi sare waa inaad soo marto. marka taan raba inaan maanta halkan idinka raaciya waxa weeye aqoonta inay mid muhiima tahay. ta keliya aynu horumarkan ku gaadhayna aan u baahanayna ay tahay inaynu wax baranno. haddaynu rabno dadkii waddankii joogeen la caawiyana dabeedna halkan lacag ku samayso. haddii kalena statiskin layna tusiyay markii dhaweydee dambiyada badan ayay noqonaysaa in la galo si lacag loo sameeyo. wax lagu faano maaha maalinaya waddanka dadka ina sharaf ku keeni mayso adna sharaf ku keeni mayso. marka haddaan hoos u yaro dhaadhaco tan xagga shaqada oo matalan eega dhinaca dowladda dowladdu dad badan bay shaqaalaysiisaa sanad kasta. waddankan haddaad eegtana dad badanoo waaweyn baa jooga oo waxaan pensionka nidhaa galay. marka baaritaano ay sameeyeen iminka wasaaradda shaqadu ayaa waxay sheegayaan in 10 sano ilaa 15 sano ay soo socdaa dad gaadhaya ilaa milyan iyo 1,600,000 inay pensionka gelayaan. taasina waxay keenaysaa de inay wax badan isfuraan. qofka isu furaysaa hadda waa qofka diyaarka markay wax isfurayaan aqoonta leh inbaa jaanisaleya oo ku geli kara markaa jaanisada isfuraya. takaleeyoogna waxa weeye dadka badan iminka pensionka gelaya waa dadkii dhashay 40-nadii 50-nadii 10 sano kadibna waa dadka pensionka gelaya waa dadkii 60-nadii dhashay. halkaasaad ka qiyaas qaadan kartaa sawirradii iminka inankeena tusaya dadka Norway sidee u noolyihiin. iswidana qiyaasta waa saasoo kale aan odhan kara waayo yaraanta badan dadka waaweyna way yaryihiin. marka dadka iminka 10 jirka halkan ku arkaynaa waa dadka 15 sano kadib suuqa shaqada soo gelaya. sidayna u dhisna maanta ayaana suuqa kusoo gelayaan shaqada. marka taasi waa mid muhiim ay tahay inaynu qaadano si aynu maskaxdooda iyo dee aqligooda sare ugu qaadno si ay dadka uga tartami karaan. dadka maanta inta badan wasaaradahan dowladaha ka shaqeeyana intooda badan waa dad berigii hore markay shaqo qabsadaan shaqada way joogi jireen. hore umay badbedeli jireen shaqooyinka. laakiin imika waxaad moodaa dadkan imika shaqaalaysanaa waa dadkii dhashay 80-nadii iyo wixii ka dambeeyey. dadkaas way ka socod badan yihiin kuwii hore. kuwii imika 40-nadii 50-nadii dhashay waxa laga yaabaa shaqadu qabsadeen maalintuu 17 jirka ama 18 jirka ahaa inuu maanta pensionka galo. inuu maanta dadka pensionka galaya qaar baa 40 sano ka shaqeynaya shaqo keliya aan bedelin. laakiin waxa laga yaabaa 4 sano inuu shaqo joogo qofku ka tago shaqo kala tago. taasi waxay keenaysaa inuu suuqii shaqadu xarakaadkiisu bato. waynu ognahay inta badan waxaa laga hadlaa la yidhaha Sweden suuqeeda shaqadu uu taagan yahay waa run weeye. Denmark haddaad eegto uu ka dhaqaaq badan yahay uu ka socod badan yahay dadku way bedelaan intaa shaqada. imika waxaad moodaa markaa dadkan 80-nadii dhashay imika suuqa shaqada soo gelaya inay ka dhaqdhaqaaq badanayaan kuwii berigii hore. ay taasina keenayso qofkii inuu jaaniskiisi ka bato oo qofkii la shaqaalaysay. waxaan tusaale kusoo qaadi karaa 2008 wasaaraddan cashuuraha iyo Tibori waxaan ku shaqaalaysanaa 420 qof mar keliya gobolkan oo dhan meesta iyo talaan la yidhaahdo Burrows ku jirto Halmstad ku jirto Kungsbacka ku jirto. 2008 waxaa kasoo wareegay iyo 4 sano ilaa 30% way naga tegeen shaqooyin kale doontaan. markaas waxay ku tusaysaan inuu dhaqdhaqaaqu ka badan yahay siduu ahaan jiray. imika carruur badan ma dhalato ina waa ogtihiin siday tahay. dadkii Swedish-ka marka laynoo eego Soomaalideena xoog weynu dee uga carruur badan haddii loo eego tir ahaan reer ahaan. taasina waxay keenaysaa inaynu nahay generation buu bedelaa waddanka. pensionka waa laisku nool yahay. imika dadkan 40-50 ka dhashay markay baxaan dadka caawinaya dee nooleynaya oo dadka 70-nadii 80-nadii dhashay. kuwii xidmad markay baxaan waa 70-nadii 80-nadii. inaguna marka dambe soo galaa marka macam rajadu waa shay muhiim ah inuu inaga lumo maaha. laakiin waa inaynu ogaano waxa laynooga baahan suuqii shaqada oo ah aqoon. dadka shaqada soo doonaya inta badan 2 exam bay haystaan.
hadday ugu yaraadaan inagana midkiiba inaan inta badan hayn aynu u taaglaanay aniga awood baan leeyahay dad ku shaqaalaysay laakiin nasiib darro dee waa garab ma jira halkan waa in qofkii wuxuu wato lagu ixtiraamo marka waxaan rabay inaan diraaciyo maanta waa aqoonta faa'iidadeeda iyo muhiimkeeda mustaqbalkuna inuu fiican yahay way fiicanta inaynu waddankii ku fikirno dee waa imankay namadii iga horreeyey wax fiican bay naga tusayeen waddankii taageero badan inooga baxaa ilaahay ha hagaajiyo insha allah waa loo noqon doonaa mar loo noqdoba laakiin intaynaan noqon aynu halkan joogno waxa fiican baan malaynaya in la ilaawin inuu halkani guriga noo tahay waayo imanka 20 sano ugu dambeeyey saasoo loo soo qulqulayay rag bay 15 sano shindadu u xidhnaayeen isla waa noqonaysaa laakiin weli xidhan yihiin marka inaynu waddankiina aamino tijaabino inaynu wax ka baranno aqoontu miisaan laguma haysto waxaynu maanta baranno halka waynu kala tegi karnaa cidina odhanaysa ma jirto aqoonta noo dhigo adu keligaa tag waxaad halka ku barato ood qaadanaysa laba oga waa 4 adduunka oo dhan markaa muhiimadda waxbarashadu inay tahay waxaad u qaaliya suuqa shaqaduna mustaqbalka u baahanayo xoog isu furfurayo ayaan rabay inaan halkan idinka raaciyo takale muhiimkana waxa weeye kolle way fiican tahay inaynu Soomaali ahaan iyo dadkeenan aynu badan xaafadahan magaalada kasoo baxsanaynu deganahay inaynu tijaabino inaynu waddanka fahamno xaq waynu ku leenahay inagana xaq baa laynagu leeyahay labadii dhinac ba israacino xaqa laynagu leeyahay inaynu tijaabino inaynu dadka ka raali gelino inaguna xaqeena doonano waayo xaqaaqa waxaad helaysaa markaa tii kale aad dadka xaqooda siiso waddankana maadaama aynu ku cusubnahay aynu 10 sano deganaan 20 sano deganaan 30 sano deganaan waqtiga lagu qaadanaysa intaynu fahmayna inaan layna fahmaya laakiin aynu tijaabino inaynu nagu fahmay intaanu horta qasbino inaga layna fahmin taasina waa mid suuqa shaqada qasab kale looga baahan yahay maaha keliya inaga dadka bilaadanku way kala wada duwan yihiin iswiishka dhexdooda kuwaan anugu haystaa waa kala wada aragti dhexdooda tartanka ku jirayda ayaa ka xun kay dadka kale ku hayaan marka tii bilaadanimadu waa teeda iyo tartankii guud laakiin waxaa fiican mar kasta in la xasuusnaado waxa lagaga baahan yahay waddan aan isu hadaad timaado haddaad ama ku cusbo ama in badan joogaya inay aqoontu tahay wax muhiima marar badan waxaad maqlaysaa rag aan dadooda runtii u weyneyn 25 ku odhanaya waa madaxayga wax dabageli maayaan waxaan qaadanaya waan qaata waddankana waa ogtiin oo 60 jirka ee iskuulka taga oo wax bartaa markaa suuqa shaqadu insha allah isku furayaa rajaduna aad bay fiican tahay laakiin muhiimka waxa weeye inuu qofku diyaar ahaado markuu jaanis ku imanayo waxaan marayaa waqtigii in badan baa fadhideen أنا أنت أصلاً الرعاية أبغى ما سنتين الجستان.
soo bilowday saacadu marka ay ahayd 8 haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan hadaha iyo kale hawada isku macsalaameyn jirnay barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Afac Cumar Caddo dhanka farsamada iyo waliba kaamirada waxaa barnaamijka gacan weyn ka geystay Xuseen Cabdi Calasow inta aan dib dambe u kulmi doono isbuuca dambe haddii Allah awood leh oo ogolaado sidaas iyo nabadgelyo